Sanadkii 2009, gabar yar oo dhalinyaro ah oo lagu magacaabo Gabriela Rico Jimenez oo ka soo jeeda waddanka Mexico ayaa ka soo muuqatay wararka ugu waaweyn adduunka ee maalintaasi, iyada oo si aad ah u qaylinaysay, u hadlaysay, isla markaana u cataabaysay. Hadalkeeduna waxa uu ekaa mid ka hadlaya shirqool iyo afduub caruur loo geystay. Intii ay hadlaysay, waxa ay ku eedeysay siyaasiyiin waaweyn oo awood leh oo u dhashay waddanka Mexico in ay geysteen falal aad u xun, oo ay ku jiraan falalkaasi in ay cunaan hilibka dadka bini'aadamka. Ninkii ugu lacagta badnaa adduunka xilligaasi oo ka soo jeeday dalka Mexico ayaa ay ku eedeysay in uu qayb ka yahay mashruuc caruurta laga ganacsado oo hilibkooda lagu cuno. Hadalkeeda waxaa loo arkayay dhalanteed iyo waali. Waxa ay ahayd haweeney caan ka ah dalka Mexico guud ahaan, waxa ayna ka mid ahayd gabdhaha modelka ee la yaqaan. Wixii ka dambeeyay markaasi dhacdadaasi kadib, weligeed mar dambe lama arag. Dhammaan raadadkeedii internetkana waa laga waayay, taasoo keentay in dad badan ay rumaystaan in hadalkeedii ay ku duugneed sheeko weyn oo mugdi leh. Gabriela Rico Jimenez oo ah haweeneydan aan sheekadan ku eegayno, waxa uu magaceedu mar kale dib ugu soo laabtay warbaahinta iyo doodaha dunida kadib markii waaxda cadaaladda Mareykanka ay sii daysay dukumiinti cusub oo la xiriira faylasha Jeffrey Epstein. Ninkan oo sheekadiisu ay dunida qabsatay maalmihii iyo toddobaadyadii la soo dhaafay, ninkan oo horey loogu xukumay dambiyada kufsiga iyo tacadiyada caruurta ka dhanka ah. Dukumiintiyadan cusub ayaa xambaarsanaa eedeymo naxdin leh oo ku saabsan xaflado ay ka qayb galeen dad badan oo siyaasiyiinta ugu waaweyn dalka Mexico iyo dunida ka mid ah, iyo kuwo awood leh oo ganacsato u badan, kuwaas oo lagu eedeeyay falal aad u xun, taasoo keentay in dad badan ay dib u xusuustaan muuqaalka muranka badan dhaliyay ee Gabriela Rico Jimenez, kaas oo markii ugu horeysay la arkay sanadkii 2009. Dhacdadaas ayaan ku laabanaynaa oo aan ka sheekeyn doonaa, iyo xiriirka ka dhexeeya faylasha cusub ee Jeffrey Epstein, ninka loogu hadalhaynta badan yahay dunida xilligan, oo soo saaray faylal tiro badan oo xitaa uu ku jiro madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Inta aan sheekada sii gudagelin, waxaan kaa codsanaynaa in aad ku soo biirto barteena YouTube-ka si aad ula socoto sheekooyinka kale. Muuqaalka like saar, lana wadaag asxaabtaada. 4 Agoosto 2009, muuqaal ayaa laga sii daayay telefishinka dalka Mexico, kaas oo muujinayay Gabriela Rico Jimenez oo joogtay hoteelka Vista Inn ee magaalada Monterrey. Waxa ay xirneed shaati jeexjeexan oo gaduudan oo ay ku qorneed yamyam, iyadoo halkaasi hadallo isku dhex yaacsan oo aan isku xirnayn ku qaylinaysa. Waxa ay lahayd hadallo badan laakiin u badnaa qaylo iyo eedeymo isla socda. Waxa ayna u jeedinaysay dad ay ku tilmaamtay kuwa ugu awoodda badan dunida, oo isugu jira ganacsato iyo siyaasiyiin waaweyn oo magac iyo mansabba ku lahaa bulshada dhexdeeda. Waxay sheegtay in dad la dilay, caruur la cunay, isla markaana ay jiraan shirqoollo ballaaran oo qarsoon oo bilaabmay sanado ka hor. Waxay sheegtay in dadka la dilay ay ku jiraan ama uu ku jiro qof lagu magacaabo Morinho. Waxa ay intaasi ku dartay in nin la yiraahdo Carlos Slim uu arrimahaasi ka dambeeyay, oo ganacsado ahaa, iyadoo ku eedeysay in shaqaalaha hoteelkuna ay wax ka og yihiin waxa ay ka hadlayso, isla markaana ay doonayso in dadkaasi lagu xukumo xabsiga ugu sarreeya. Waxa ay sidoo kale ka hadashay in lagu jeesjeesayo hadalkeeda oo aan waxba laga soo qaadayn. Eedeymahaas ayaana sii xumaaday, iyadoo taagan masraxa ayaana waxa ay ku andacootay in dadkan ay cunaan hilibka dadka. Markiiba arrintu waa ay baahday. Markii ay halkaas maraysayna booliiskii ayaa yimid, waxayna kaxeeyeen gabadhii. Wixii markaasi ka dambeeyayna dib dambe looma arag. Gabadhii lagu magacaabay
Gabriela Rico Jimenez muuqeeda iyo maqalkeeda midna. Haddaba maxaa ku dhacay? Inta aanan ka hadlin dhacdadaasi waxaa wax badan ka qoray qorayaal waaweyn oo baaray arrintan si ay u fahmaan. Waxa ayna Gabriela ay ku tilmaameen inay ka mid ahayd waxa ay ugu yeereen supermodel caan ah, gabdhaha modelka ah ee adduunka laga yaqaan, gaar ahaan dalka Mexico oo ay ka soo jeeday. Waxa ayna ka soo muuqatay masraxyo kala duwan oo dalka Mexico City, aan iraahdo caasimadda Mexico ee dalka Mexico, Paris ee dalka Faransiiska, ilaa New York oo ah dalka Mareykanka. Isla markaana waxay ka soo muuqatay majaladaha Cosmopolitan ee dalka Mexico, kuwaas oo cadeynayay in ay ahayd gabar model ah oo caan ah oo la yaqaan, taas oo meesha tuhun badan sii gelinaysa. Haddii ay arrintaasi run tahay, hadalkeeda iyo maqnaanshaheedu waxa ay noqonayaan kuwo aad u cabsi leh, si ka duwan qof caadi ah oo bulshada ka mid ah. Si kastaba ha ahaatee, marka internetka laga baaro gabadhaas aan ka sheekeynayna ee Gabriela Rico Jimenez ah, waxaa adag in aad ka soo heshid waxyaalo ku saabsan, taas oo iyadana tuhun badan sii dhalisay. Marka laga reebo muuqaalka wararkan la xiriira, waxay u eg tahay in aadan heli karin wax ku saabsan Gabriela. Taasina waxay keentay in ay dadku mala awaalaan in la tirtiray dhammaan raadadkeedii si loo aamusiyo bulshada, isla markaana hadalkeedii halkaasi loogu jaro. Intii ay hadlaysay Gabriela waxa ay sheegtay ama ay xustay nin lagu magacaabo Carlos Slim in uu ka dambeeyay wax kasta oo ay ka sheekeynayso. Carlos Slim waa ganacsade caan ah oo u dhashay dalka Mexico, waxa uuna xilligaasi ahaa ninka ugu qanisan guud ahaan dunida. Taasi waxay sii hurisay aragtiyada shirqoolka iyo afduubka oo ay ka sheekeynayso Gabriela gabadhan lagu magacaabo, maadaama dadku ay rumaysnaayeen in uu yahay ganacsade awood badan leh, dhaqaale ahaan awood u lahaa in uu ka qayb qaato falalkan lagu eedeynayo. Waxaa sii dheeraa warar aan la hubin oo sheegayay in Gabriela ay xiriir la lahayd mid ka mid ah wiilasha uu dhalay Carlos Slim, taasoo laga yaabo in ay siisay fursad ay ku aragto arrimahan mugdiga badan leh oo ay ka sheekeynayso, laakiin dadku aysan ka warqabin. Gabriela waxay sidoo kale ay ka hadashay xilligaasi dilka nin la yiraahdo Morinho. Si loo fahmo arrintan, waxaan u baahanahay inaan ku sii faahfaahiyo. Waxa ay u jeeday John Camilo Morinho Terrazo. Waa nin u dhashay dalka Mexico, siyaasi reer Mexico ah oo ka tirsanaa xisbiga National Action Party ee loo soo gaabiyo NAB, isla markaana ahaa xogaayihii madaxweynihii xilligaasi ee Felipe Calderón. Morinho waxa uu door weyn u ka qaatay ololaha dowladda Mexico ee ka dhanka ahaa kooxaha daroogada. Hal sano ka hor, marka wararkan ay soo baxayaan, waa sanadkii 2009, ayuu ku dhintay shil diyaaradeed oo ka dhacay caasimadda Mexico, kaas oo dilay dhammaan dadkii saarnaa iyo 7 qof oo kale oo dhulka joogay. Inkasta oo markii dambe la sheegay in shilku uu ka dhashay qalad duulimaad, haddana dad badan ayaa shaki ka muujiyay dhimashada ninkan oo lagu magacaabo Morinho. Waxaana wax badan ay afkeedu ku soo celcelisay Gabriela markii ay ka hadlaysay arrimahan. Sanadkii 2015, blog Spanish ah oo la yiraahdo The Black Panic ayaa daabacay qormo uu qoray arday sharciga barta oo sii ballaarisay tuhunka laga qabo sheekada ay ka sheekeynayso Gabriela dhab ahaanteeda. Waxa uu ardaygaasi muujiyay ama uu ka hadlay waxa uu sheegay in uu la hadlay Gabriela kadib markii booliisku ay soo kaxeeyeen. Waxa uuna sheegay in ay u sheegtay arrimo cabsi leh oo ay ku jirto saldhig dhulka hoostiisa ah oo ku yaala Monterrey
dalka Mexico halkaas oo caruur laga afduubto si loo cuno hilibkooda. Sheekadan si kastaba ha ahaatee waa mid aad loo tuunsan yahay run ahaanteeda. hase yeeshee ninkan ayaa waxa uu sheegay in ay uga sheekaysay Gabriela arrimahaasi oo dhammaan, waxaana sidaasi qoray The Black Panic blog dalka Spain laga leeyahay sanadkii 2015 waa markii la waayay 6 sano kadib. ugu dambeyntii sababta ugu weyn ee kiiskan uu u muuqday mid qarsoodi ah isla markaana tuhun badan uu ka muuqdo waa sheegashada Gabriel oo ah mid iyada ku kooban. waxaanan jirin warar badan iyo dhinacyo kala duwan oo ka hadlaya xiisadan iyo arrimahan marka la eego xilligaasi. taas darteed Gabriel hadalkeeda waxaa adkeed in dadku ay rumaystaan sida iyaduba ay aaminsaneed. waxa ay dadku sameynayeen in ay ku jeesjeesaan isla markaana hadalkeedu ay ku tilmaamaan dhalanteed iyo waali. laakiin markii la soo gaaray sanadkan 2026 waxa la ogaaday wax kasta. waxa daah laga qaaday run badan iyadoo dadku ay ku baraarugeen in wixii ay sheegaysay Gabriela ay u muuqdaan wax sax ah oo jira isla markaana ay ka aragti dheereed isla markaana ay ahayd markaas in la rumaysto. haddaba sidee wax u dhaceen? maxaa rumeynaya hadalka Gabriela? dad badan waxa ay rumaysan yihiin in ay jiraan wararkaasi ay tilmaamtay Gabriela ee ah in caruurta laga ganacsado hilibkooda la cuno isla markaana ay ka dambeeyaan ganacsato iyo dad awood leh oo magac ku leh bulshada dhexdeeda, sida ay muujinayaan faylasha la baahiyay ee ku saabsan Jeffrey Epstein, ninkan lagu eedeeyay dhaqan xumada, dilka iyo sidoo kale wax ka dhan ah bani aadanimada. ninkan oo hore loogu xukumay dambiyo ka dhan ah kufsi, tacadiyo caruur iyo sidoo kale waxyaalaha lagu tilmaamo cannibalismka isla markaana ku dhintay xabsiyada dalka Mareykanka ayaa faylashiisii la soo faagay iyadoo in ka badan ama kumanaan fayl oo sir ah oo uu ninkan keydiyay lagu baahiyay baraha bulshada xilliyadii u dambeeyay. faylashaas waxa laga helay in ay jiraan kiisas la mid ah wixii ay ka sheekeynaysay xilligaasi Gabriela. waxaa ku jira in caruurta ilmaha yaryar hilibkooda la cuno isla markaana sidii hilibkii oo kale loo karsado. waxaa sidoo kale ku jira kufsi iyo tacadiyo ka dhan ah caruurta, waxaana dhammaantood geysanayay ganacsato, dad magac ku leh bulshada iyo siyaasiyiin waaweyn. waana intaas intii ay tilmaamtay Gabriela markii ay qaylinaysay oo ay cataaweysay isla markaana ay codka dheer ku sheegaysay waxa ay sameynayaan dadka ugu tunka weyn ee guud ahaan dunida. waxaana ka mid ahaa markaas ninka ganacsadaha weyn ee ay tilmaamtay Gabriela oo markaasi ahaa ninka ugu taajirsan dunida. faylashaas ayaa muujinaya imika in hadalkii Gabriela uu run ahaa isla markaana ay wax ka jireen. sidaas si la mid ahna in dalka Mexico ay uga jireen in caruurta la dhoofiyo isla markaana hilibkooda la cuno. tuhun badan ayaa ka jira inkasta oo magaca Gabriela aanan laga helin faylashaasi, laakiin waxaa socda fagitaanka iyo baahinta faylashaasi. waxaa sidoo kale la helayaa dhacdooyin la mid ah wixii ay ka sheekeynaysay, taas oo run ka dhigaya hadalka Gabriela. ilaa iyo imika warkeeda lama hayo, mar dambana lama arag markii ay booliisku xireen wixii ka dambeeyay. sheekadan waa sheeko runtii argagax leh, murugo leh, isla markaana aanan ilaa iyo hadda dhammaanin oo taagan. war iyo wacaal midna lagama hayo halka ay ku dambeysay Gabriela Rico Jimenez, laakiin waxay dad badan aaminsan yihiin in si qarsoodi ah loo dilay si loo aamusiyo
oo aan warkaasi uusan bulshada ugu baahin. bal adigu aragtidaada maxaase kugula yaab badnaa? runtii kiiskan waxa uu ka mid yahay kiisaska ugu loogu hadalhaynta badan yahay ee la sugayo in laga helo faylasha Jeffrey Epstein. aragtidaada hoos nagula wadaag, muuqaalkana saaxiibadaada la wadaag. waxaan jeclaan lahayn inaad nagu soo biirto si aad ula socoto sheekooyinka kale ee xiisaha leh ee boggeena YouTube-ka Xuseen Xaaji Xasan aynu ku soo gudbin doono. magacaygu waa Xuseen Xaaji Xasan. Assalaamu calaykum.